magac baxay master xaliye asagoo aaminsan in dhalinyarta Soomaaliyeed especially ragga uu xal u yahay ama daawo u yahay dumarkana in badan ku tuntay muuqaalkiisa markaa aragtid iyo hadalka ka soo baxay wax farqi ah u dhaxeeya ma leh hal iyo labo aan isla daawan master xaliye ama master qariba qaar markaad wacdo naagahooda taleefanka ka qabanaya anigu ma aqaan naagahoodu waxay taleefanka ka dhex qabanayaan isagaad wacaysaa naagtiisa taleefanka haysa war naagta maxaa taleefanka uga qaadi weyday maya niyow kalsooni bay maaragtay igu qabtaayo kalsooni baan ku qabaayo taleefankaygu xataa ma laha maxaa la dhihi jiray password ama bin kuma xidhna taleefankayga anigu ma aqaan xurriyad nooceeyay tahay inaad taleefankaaga nin ahaan u dhiibto naagtaada oo guriga xataa haddii ganacsi nin kuu soo wacayay naagtaadu ay qabanayso xariifkan masaskii hore ka soo haray hal xabatin aan lagu arkaynin falsafad ahaan wuxuu aaminsan yahay in xaaskiisa ama xaasaska dhalinyarta Soomaaliyeed haddii taleefanka passwordkiisa ama number sireedkiisa ay ogaato ama taleefankiisa ay qabato ama taleefankiisa ay la isticmaasho in xuriyadda ama ragga xuriyadooda meel loogu dhacay ay ragga ku jiraan adoonsi falsafada ka gudbuu leeyahay laakiin taa waa qalad waayo kalsoonida lagu sheegay waxay tahay xaaskaada iyo adigaba in aad qalbiyeedina isku furtaan hadday taa adoonsi ay tahay gabadha intaasoo sana uu soo korinayo nin adiga kula mid ah oo aabba Soomaaliyeed ah uu wax soo baray jaamacad uu ka bixiyay hooyo 9 bilood ay gabadha soo foolatay oo laga yaabo foosheeda inay ku dhibtootay haddaad gurigeeda ka soo waday iyadoo aanan ku faraxsaneen waalidkeeda inay ka dhex baxdo oo aad guri gooni ah u yeeshay laga yaabo wiigii waalidkii dhalay inay hal mar soo booqato taa hadday kugu sabartay adigana maxaa diiday marka taleefon inay kula isticmaasho waayo reerkeedii dhanaa ka waday marka simple hadday tan adoonsi tahay tan guriga aad ka soo waday iyadana waa adoonsi marka in la isku sabro ay sharafku ku jiraan mobile passwordkiisa iyo number sireed haddaad ku aamini wayso qofka ku dhaxda aad rabtid ilmahaada bari ka maalin inay xanaanayso hawsha guriga ay qabato haddaad password ku aamini wayso what about sidee nolosheeda iyada kugu aamini kartaa marka in la kala cabsada imaanaysa marka falsafadan waa totally wrong badan marka ay shaqada ka soo baxaan waxa la sugayaa oo naagtiisu ay u fadhidaa guriga inuu guriga istreed u imaado taasna nin ahaan waxay kugu tahay xurriyadaadii nin ahaan baa meesha ka maqan marka waxaad samaynaysaa si aad uga badbaado waxyaabahaas markaad naag guursato ha barin wax la dhaho joogtay waxay rabtaa ha noqoto tusaale haddii aad guriga tagto 6 habeenimo oo aad ka soo baxdo shaqada 5 iyo barka ha aadin guriga 6 waxaad tagtaa guriga 8 maalinka ku xigta waxaad tagtaa 10 maalinka ku xigta waxaad tagtaa 6 saac habeenimo taasi waxay maskixiyan naagtaada u programinaysaa ama psychological sida iyadu u fakirto in aysan samayn karin wax la dhaho isla xisaabtan markay imaato timekaaga halkaad ku maqan tahay iyo waxyaabaha la midka laakiin haddii aad naagta barto joogtayn aad barto wixii aad bartay bay kaa rabtaa rag badanna meeshaasay godka ku galaan oo naagta waxa ay maalmihii koowaad bareen bay naagtu filanaysaa oo ay meesha u fadhidaan okay horta waxaa nasiib daro ah madaxaada sayskiisa iyo aqligaada iyo garaadkaada inay islahaadaan wuxuu ku leeyahay gabadha ha barin in aad habeenkii dhaqsi soo hooyato nasiib darada taalaha waxay tahay wuxuu ujeedkiisu yahay in dhalinyarta Soomaaliyeed uu ku sameeyo wax la dhahay mental domination in psychological yani maskaxda dhalinyarta inuu bedelo rabaa ujeedku ku bedelaa waxay tahay in meel xun uu wax ka tusi sababtan ku sheega waa waajib adiga ku saaran waa garaad iyo sharaf adiga ku saaran ina xaaskaada waqti fiican u soo hoyid sababtan ku sheega gabadha raali ku noqotay 24 hours inay guriga ku joogto inta ay baxayso ay tahay wax yar oo kooban maray soo adeeganayso oo kaliya inta kale ay guriga joogto maray adiga cunto ku karinayso maray adiga dharkaada dhaqayso mar ay sariirta aad ku seexanayso goglayso mar ay guriga ka carfinayso 24 saac hadiyada ugu qaalisan qof bini aadan la siin karo ay tahay waqtigeeda ay ku bixisay sidii adiga meel diyaarsan oo qurxoon iyo cunto wanaagsan ay kugu karin lahayd maxaa diiday marka inaad adigana waqti fiican inaad gurigeeda imaato waxaa wanaagsan inaad ku farxad gelisid saacadaada waqti ka mid ah inaad waqti fiican soo hoyatid waayo adiga waxaa laga yaabaa
halka mar aad baxdid 12 meel kala duwan halka maalin inay aadid laakiin iyada waxaa laga yaabaa 3 meel inay aadid jikada dukaanka khudaarta iyo gurigaada inay ku wanaajiso iyadoo laga yaabo inay wax soo baratay oo maanta awood u leh inay shaqaysato ayay waxay ku sabartay jaceylka adeeg ku qabato darteed inay guriga kugu joogto qof waxbarashadeedii damiirkeedii waqti ay lacag ku samayn karto ku shaqaysan karto adiga ku hurtay si ay guriga kugu hagaajisato oo raali ay u noqoto rabbi subxaanahu wa tacaala gabdhuhu ammaanay ay noqoto adiga marka maxaa diiday taamkii lagugu talagalay inaad ku soo hoytid marka ragga dumarka la ficilta maayo koley waxaa waaye diraci la xirtaa marka waxaad arkaysaa nin korinaya 4 canug uusan dhalin 4 canug oo uusan isagu dhalin buu korinayaa maxay tahay faa'iidada kugu jirta nin ahaan inaad koriso ciyaal aadan dhalin ilaa adigu ma tihid maxaa la dhihi jiray meeshii xanaanada ciyaalkee maxay tahay ma sheegi karo wuu iskaga dhex jiraa danta ugu jirta ragga garaadka leh oo gabar caruur wadata guursanaya haddana korinaya caruur aysan dhalin xigmadda ku jirtaa waxay tahay raggaa waa rag dhaafay annagoo dhan naga sareyn waayo gabadha waxaa laga yaabaa awlaadda ay markaa haysata ninkii hore u qabi jiray inuu masruufka ka jartay iyadoo u uqdadaysan ragga oo isla ninkaani ku furay masruufkana kaa jartay ragga zamankan jira rag ma ahan asagoo iyadoo ay ku qufulan tahay ninkii u yimid awlaaddii la koriyey naxariis tusiyey jacayl tusiyey gabadha waxaa laga yaabaa fikir qaldan oo ragga ay ka aaminsaneed in xanuuno badan ay markaa tabanaysa inuu rabbi subxaana wa tacaala naxariistii ragga u muujiyey inay boogteeda ku dhayato oo farxad iyo reereen ay reerkaa la noolaato waxaa laga yaabaa awlaadda ay gabadha ninkaa u dhashay inay 100% kaga fiicnaadaan awlaadda uu asaga gacantiisa ku koriyey waayo waxaan aragnay 100 rag ah awlaaddii ay dhaleen ay inkirayaan adiga say aabbahay ku noqotay ay leeyihiin oo ay aabbanimo u aaminsan yihiin ruuxii soo koriyey marka ayaan dare waxaa kugu filan in arsaaqad ilaahay ruux kale gacantiisa u soo marsiiyey inaad eray ka keento waayo ruuxa caruurtaa korinaya rabitaankiisa waxaa ka qaalisan inuu rabbi naxariista qalbigiisa ku beero marka ruuxa waa ruux rag dhaafay rag dhaafayda waxaa ka maseeri kara ruux dumarka ku mustawa ah waan idin salaamaawo marar badan waxaad aragtay nin dhalinyaro oo naag uu raadinayay ama naag uu rabay ay ku dhahday kuma rabo ama ay ku dhahday xiriir baan ku jira ama ay waxuun u sheegtay marmarsiyo ah oo micnaheedu yahay kuma rabo adiga oo ku dhahaya waan ka keensanayaa anaa jacayl ku abuuraya anigu haddaan ka daba wareego way jeclaanaysaa iyada ay rabaysa baraada in lagu isticmaalo ma sheegin laakiin cid ku rabto ma jirto kuma rabo micnaheedu waa kuma rabo hadday ku rabto iyadaa waqti ku gelin lahayd iyadaana kusoo raadin lahayd danahaaga raaco isku mashquul adigu isdhis ka fakar waxyaabaha kuu muhiimka ah okay jooji qasabka ninkan wuxuu la baxay master xaliye master ruuxa markuu la baxayna waa ugu yaraan ruux master degree soo diyaari laakiin meelaha ruuxan ruux waxbarashadii heer master ay gaartay waayo ujeedkan kuu sheegaa wuxuu ku leeyahay dumarka waqtiga ugu badan ha gelinina hadday maya ku dhahdo ha sii daba raaracin dantaada raaco taa waxay imaanaysaa in challenge dhanka dumarka aad la samaysid gabadha waxaa laga yaabaa iyadoo ay adduunka kugu jeceshahay ku rabto haddana inay is-suuraynayso waayo suuraha dumarka waa in nature waxay u leeyihiin iyadoo ay ku rabto ay waxay ku leedahay ma ku rabo waxay is leedahay zaa'id ha kuu sii jeclaa marka gabadha haddaadan adiga rabitaan ka keensanin oo soo jiidanin iyada say ku daba ordaa marka laba gabdhood oo is ceersanaya maa tihiin maya waa inaad dareensiisaa ragga iyo dumarka inay farqi u dhexeeyaan ragga waxay ku fiican yihiin soo jiidashada dumarka inay soo jiitaan dumarkana waxay ku fiican yihiin markii la kasbaday inay ragga naxariis siiyaan dumarka kuma soo raadeena iyagaa la raadsadaa la kasbadaa reer loo dhisaa waxaa jira marka ninkaani mentaality ahaan wuxuu aaminsan yahay in ragga dumarka lacagta siiya ay yihiin daanyeero bal 1 iyo 2 dood wadaag dhex martay asaga iyo dhalinyarta ku xiran aaminsan inay day dumar lacag siiyaan daanyeer ay noqonayaan bal 1 iyo 2 ila daaw niyo daanyeer waxaan ogaa bardan baan ogaaday inaan daanyeer ahay marka xaaladdu ugu adkaatay ma garata baashay ka dhamaatay ogaaday inaan daanyeer okay maxaa ka dhamaaday kista kisira iga dhamaatay horta anagu niyo horta anu daanyeer caqli badan baan ahay marka idil aan ku dilay shaqada ma garata
daanyeer faanaya weligii ma arkin waa ku salaamaya way fine ja dhalinyartii wuxuu ka dhaadhiciyey iyagoo bini aadan ilaahay karaameey ah inay daanyeer yihiin waaba aaminsan yahay daanyeer caqli badana ahaayo ku leeyahay xayawaan iyo adiga haddaa isku mustawa noqotaan maxaad raganimo ka sheeganaysaa maxaad bini aadan karaamaysan ka sheeganaysaa maxaa xigmad ka sheeganaysaa marka ruux asaagaada wuxuu kaa dhaadhiciyey adoo bini aadan ilaahay karaameey ah ilaahayna uu yiri suuratii ugu qorxooneedaan kaa abuuray in uu kaa dhaadhiciyo mentaality ah inaad daanyarta kolay ardaydaada naananiyo hore u soconayahow daanyeerada way bateen ma fahansaay yaa daanyeernimo waxaa ka roon saaxiib ardaydaada in la noqon saaxiib hadda kadib ardaydaada naananiyo yaa waxaa jira nin aaminsanaa in dumarka sirtooda la heli karo waxaa la dhihi jiray Dr. Alan Francis wuxuu waqti badan ku bixiyay ku dhawaad sanado badan ayuu waqti ku bixiyay in uu dumarka dhankooda research uu ku sameeyo uu raadiyo xitaa wuxuu ninka sameeyay interview badan inuu la yeesho dumarka iyo ragga inta badan si uu in badan ugu ogaado dumarka wuxuu soo saaray sanado kadib buug ugu magac daray Everything Men Knows About Women yacni waxyaabo badan oo aad ka ogaan kartid dumarka sirahooda in detail buuggii aada loo iibsaday buugga wuxuu ka koobnaa 128 page buugga laakiin markii la kala furay up to now waa la iibiyaa buugga markii la kala furay wuxuu noqday 128 page oo maran waxba aan ku qorneen xigmadda ugu dambeysa waxay noqotay sir naageed lagama sir gaaro waayo ninkaas sanado badan research uu sameeyay asagoo doctor ah wuxuu soo ogaaday sirta dumarka inaan la heli karin marka dhalinyarta waxaan leeyahay haddaad aaminsan tahay dumar wax lacag kaama qaadi karta ama dumar wax kuma siin karto waxaa laga yaabaa million ways oo ay taqaano ragga ay lacag kaga cuni karto adiga halka aad taqaanid hal sifo oo aad dumarka iskaga dhicin kartid inaad lacag siinin iyaga waxay yaqaaneen million ways oo ay ragga lacag kaga cuni karaan ama kumanaan ama malaayiin qaab oo ay dumarka ragga lacag kaga cuni karaan xigmad ka qaalisan ma jirto tan rabbi subxaanahu wa tacaala waayo ilaah wuxuuna leeyahay dumarkiina u naxariista meherna ka bixiya reerna u dhisa marka ilaahigiina abuuraya wuxuu leeyahay dumarkiina u naxariista adoo bini aadan intay joogtaan yaa dumarku waa inaa ugu naxariisataa physically mentally and financially dhan walba inaad dumarka ugu naxariisato waayo ninka ragga maanta hadduu baahdo waqtiga ciilo meesha ugu xun uu noqon karo waa inuu tuug noqdaa laakiin gabadha maanta dumarka ama gabar ha noqoto ama single mother noqoto haddaadan u naxariisanin ugu meesha uu adag ay noqon karto waa inay waddo qaldan qaadaa waddada qaldan ayaa ka badbaadin kara adigoo walaalkaada ah marna Soomaali ah marna Islaam ah inaad u naxariisatid marka gabar in loo naxariistana waa sifaadka lagu yaqaano ninka ragga ah marka gabdhaha loo naxariisto teeda kale wuxuu ku leeyahay dumarkiina wax la tarin dumar markaas soo hadal qaadid hooyada ka mid ah walaashaada ka mid ah waxa kale oo ka mid ah tan dhib la'aan kula dhalatay oo ah marna aad shukaansanaysid marna saaxiib kula ah marka adigoo ay walaashaada bil walba ku beeliso gabar dhib la'aan kula dhalatay inaad wax tari wayso wixii ilaahay ku siiyay taa xigmad xumaan u arkaa xigmadda lagu sheegayna waxa waaye inaad dumarka mustawa sare gaarsiisid intuu ilaahay ku badayna aad ku caawisid peace and